بسم الله الرحمن الرحيم. magacay waa Yuusuf Cabdi Aadan. kusoo dhawaada channelka cusub ee la yiraahdo Bara Aqoonta. Channelkani runtii waa channel cusub oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhammaan bulshada afka Soomaaliya ku hadasha meel kasta ay joogto. waxaanu idiin soo gudbin doonaa casharro ku saabsan financial accounting-ka khaasatan programmada financial software-ska la dhahdo iyo IT-ga qaybihiisa kala duwan. marka waxaynu maanta bilaabi doonaa programka cusub ee loo yaqaano QuickBook Professional. waxaanaynu ku xalin doonaa runtii qayb aad iyo aad muhiim ah oo inta badan aan aad la isugu taxallujin oo ah qaybta service-ka loo yaqaano. waxaan ku bilaabi doonaa shirkad dhisme ayaynu ku xalin doonaa haddii la dhahdo. marka dambena waxaynu iyagana ku xalin doonaa wax alla wixii adeeg bixiya sida isbitaalada, jaamacadaha, iskuullada iyo wax kasta ama business kasta oo bixiya markaa adeeg. marka ugu horeyn casharkan waxaynu ka bilaabi doonaa sida computerka aad ugu duubi lahayd programka cusub oo inta badan runtii la iska wada yaqaano aad iyo aad u fudud. marka ugu horeyn waa halka inoo yaala saasaynu laba goor u kala garanaynaa. sidaas ayuu noogu soo baxayaa. waxaan leenahay markaa daaqadda waynu ballaarinaynaa. qaybta markaa dhowr qaybood uu ka kooban yahay. halka license key weeyaan kan waxa weeye QuickBook Pro 2016 Retail. marka kaynu u baahanay waa kaasad laba korsood ayaad u gujinaysaa. iyal baad sugaysaa markaa sidan usoo baxaya. marka waxaan leenahay yes baynu leenahay, waynu aqbalaynaa. kadibna next baynu leenahay. waxaan runtii rajeynayaa in duubitaanka iyo sida loogu shubo computerka ay tahay jid iska fudud oo inta badan ardaydu ay iyo cid kastaaba ay u taqaano. waana process inta isagoo iswada oo kaaga baahan inaad isagoo ku gaargaraynaya marka adigu kaaga baahan inaad buuxbuuxiso. iyo baynu sugaynaa. muddo buu qaadanaya. marka waxay ku xiran tahay mar walba computerka qofku uu adeegsanayo siduu yahay ama socodkiisa. iyo baynu sugaynaa. soo kacaya. waxaa u shaqeynaya adarkiisa u shaqeynayaa. runtii programkan QuickBook qofka sida fiican ee loogu talagalay u adeegsada wax badan buu ka caawinayaa. waana runtii programmada imika isticmaalkooda aada u badan yahay loo dhameeyey. marka waxaa leedahay next taa ku dhufanaysaa. next markaan ku dhufano halkan waa license agreement si weyn. marka waxaan leenahay waynu accept garaynaa. kadibna next baynu ku dhufanayna. next markaan ku dhufato halkaa waxaynu gelinaynaa product license numberkii iyo product key baynu gelinaynaa. marka ugu horeyn waxaan soo furanaynaa licensiga. kaasina laba goor saa u kala garanaynaa. sidaynu noogu soo baxaya. markaa waynu kor baynu yar qaadanaynaa. marka halkaa labadaynu u baahanay labada shay saddexda shay aynu u baahanay waa kuwa halkaa inoo yaala. daaqadeeni inoo soo kici daaqadeeni waad iska eegaysaa marka waad iska license numberku marka waa kaa
waxaan leenahay markaa laba siyadood baad samayn kartaa, inaad ku dul qorato iyo inaad koobiyeysa, labada samayn kartaa. marka waan ku dul qoran saad u aragtaan 2721 kalna waa 70 kalna waa 7097 kale waa 0927 kale waa 363. kaas waa license markii product markuna waa waxa weeye waa 294 iyo 510. marka tanidana noo iska dheh taa marka saa ku dhufato license marka saa u geliso next baad ku dhufanaysa. labada qaybood waxa ku choose your installation type kaga dooranaysa express oo wax ka lagula talinayo oo mid degdega iyo custom and network option. kaas marka wax badan doonayo kaas sare inoogu daa xalayl. marka waxaan ku dhufanaynaa halkay ku qoran tahay install. saasuu markaa inoogu bilaabaya. markaasi waqtiga aan u yarayno waan yaro joojinayaa, wayn la socon doonaa videoga qeybtiisa dambe haddii la dhahdo. marka uu inoo dhameeyey sidan ayuu inoogu soo baxayaa. waxaan leeyahay markaa uu inoo dhameeyey close bayn markaa odhanayna inoo iska xidhanaa marka cashirkiina qeybta koobaad intaasaynu ku joojinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. la soco qeybaha dambe haddii ilaahay ka dhigo.